waxaan rabaa inaan halkan uga hambalyo uga diro mujaahidiinta xoogga dalka Soomaaliyeed iyo gulufka shacabka ee dib u xoreynta la isaga xoreynaya cadawga ee ka socda meelo badan oo dalka kamid ah inta ku shahiiday si gaar ah ugu hambalyeynaya ilaahayna waa aqbal oo nabadoonkeennu kamid ahaa ahalkii iyo qaraabadii iyo ilmihii uu ka tagayna sabri iimaan Allah ka siiyaan leh runtii waan u hambaleynayaa maxaa jira waa shahiid waxaan ka bilaabayaa dagaalkan ku jirno waa nooc waxaan u baahanahay inaan fahamno dagaalkan ku jirno noocee wey dagaal ma aha waxaa la rabaa qofku waa muslim muslimiin baan nahay ilaahay waxna waa inoo xalilay waxna waa inaga xarimay wixii ilaahay inaga xarimay inaan ka fogaanaa la rabo mid kamida waxa ilaahay inaga xarimay waxaa kamid ah oo waaweyn oo dambiyada waaweyn oo qof muslima bilaa sabab in loo dilo waxaan u baahanahay inaan fahamno dagaal ilaa waxbaan ku dilaay dagaalkanaan wadno waa noocee halkaas haddaynaan ka soo dhaqaaqin waxbaa inaga qaldamaya dagaalka aan ku jirno ma kii qabiilkeen ku jiri jirayba waa maya ma kii kooxaysiga iyo koox si uun isugu xiran oo kooxa kale la diriraysaan nahay waa maya dagaalkaan ku jirno jihaad ma maqli jirteen dagaalkaan ku jirno waa jihaad fii sabiilillaahi waa inuu saas yahay xamse iskama bilaaban fatwaan u doonanay culimadaan weydiinay Soomaaliyeed ee muctabarka ah ee la yaqaan ee sharafta leh waxaa naloo sheegay nimankaas inay khawaarij yihiin khawaarij taariikhdoodana waa taqaanaan Ali ibn Abi Talib bay dileen nabigaana noo sheegay waxay yihiin wuxuuna nagula dardaarmay mar alla markaan aragno inaan la dagaalanno wuxuu noo sheegay kooda dhintay inuu ahlu naar yahay keenna ku dhintaana inuu ahlu janno yahay sidaa darteed baan ugu hambaliyeynayaa nabadoon cilmi iyo intii ku shahiiday oo dhan in ilaahay u aqbalo na waa ugu ducaynayna annaga marka waxaa la rabaa horta inuu dariiqu noo cad yahay jidku noo cad yahay nimankaan la dagaalamayno waa khawaarij dagaalkan ku jirnaana waa jihaad ilaahay dartiisana ugu jirnaa horta sidaa darteed dhiigoodu waa noo xalaal horta taa waa inaan ognahay halkaas markaan ka dhaqaaqno marka askarigeennu waa inuu ogaado waa mujaahid hadduu dhinto jannuu galayaa maxaa jira shahiidka jazaa'igiisu hadday niyadiisu wanaagsan tahay dhaqankiisa islaam yahay mar hadduu shahiiday khalaas ilaahay waa u aqbalaya waa shahiid taa horta dagaalka noocaan ku jirna waa noocaas waa inaan ogaano dagaal noocaasaan ku jirna mar hadduu jihaad yahay marka jihaadka waxyaabo gaar u jira khasaa'ista jihaadka kamid waxaa la rabaa nafta iyo maalka in lagu bixiyaa la rabaa waa waajib inaan kulligan ka qayb qaadano waa waajib inaan nafteenna iyo maalkeenna ku bixino qofka hara ee soo hara ee aan intaa midna samaynin dembi waaye diinta islaamka marka la joogo dembiilu noqonaya لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة حتى هدو مسلم يهي وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما تدك إسكفر فديا عن دقالك الجليم وحا كفض لبضان وكونا أكسن كوة شهداء دقالك الجلام ama naftooda ku gala ama maalkooda ku gala intaas horta waa dagaalkaas noocaas ku jirnaa dhalinyaradana dagaalka kuwa laga cafiya hadayna ahayn laysa ala al-a'ma haraj wala ala al-a'raj haraj wala ala al-marid haraj hadaysan ahayn waxa la rabaa dagaalka inaan galno
waa maxay ciyaar baan ku gelaynaa iyo banooni baan ku gelaynaa wasiir xilligii banooniga ma aha xilligii qoriga waay waa la qaadanaa dagaalkaa la gelaa dagaalka la galo dagaalka in la galaan rabaa qori lagu galo taasna waa intaas serious inaan noqono oo dhab waxa inaga noqdaa la rabaa wax walbana wuxuu yahay haddaan lagu sheegin waxaa waaye bannaanka la taagnaanaya waxaan rabaa dagaalku aan ku jirnaa nabad buu dhalinayaa sideedaba nabad buu dhaliyaa qisaastu muxuu ilaahay ku tilmaamay walakum fi lqisaasi xayaat sow lama dhihin dagaalkan xayaato iyo nabad iyo deganaansho ayuu keenayaa waxaa walaashay zaynab ay noo sheegtay dhallinyaradu inay u baahan yihiin in la shaqaaleeyo nacam dhallinyaradu laba shay ay u baahan yihiin qofka markuu dhallinyaro yahay laba shay buu u baahan yahay mid waa inuu wax barto waxbarashuu raba midna waa inuu shaqaysto oo shaquu rabaa soo labadaa maaha labadaasaa ugu muhiimsan labadaas condition baa ku xihan conditionka ku xihan waxaa waaye dalku inuu nabad yahay waay dal aan nabad lahayn shaqo ma leh dal aan nabad lahayn waxbarasho ma leh soo inaan runta isu sheegna maaha dalku waa inuu nabad noqdaa si waxbarasho loo helo dalku waa inuu nabad noqdaa si shaqo loo helo dadkeenna dhaqaalaheenna waxaan ognahay 60% wuxuu ku tiirsan yahay beeraha weliyaashii oo dhan cadowga haysta xaggee beera laga samaynaa xaggee investment lagu samaynaa dhalinyarada xaggee ka shaqaynaya waxaan u baahannahay inaan dalka xoraysano saan shaqo u helno saan waxbarasho u helno meesha imtixaankii in loo geeyo la diiday ardayga meesha hooyada buurha kalo maalin horena waan sheegay ku dhimanaysa cunto in loo geeyo loo diiday miyaa shaqo la geyn karaa oo shaqo laga abuuri karaa wax kastoo la sameeyo oo nabadgelye aan ahayn oo waddankan la yidhaahdo waa la samaynayaa waxay la mid tahay adigoo weel dabada ka duleela biyo ku shubay hal xaba lama qaban karo anigu waxaan rabaa runta inaan idiin sheego shaqo lama helayo haddaan dalka la nabadayn waxaan rabaa intaas markaan ka tago roolka dhallinyarada muxuu noqonayaa waan soo koobayaa roolka dhallinyarada aan ka rabna waxaa waaye kow waxaad ogaataan populationkeenna ama dadkeenna tirada waxaa la yidhahdaa mujtamaca soomaalidu waa mujtamac dhallinyaro ah waana potential dhaqaale ahaan waxyaabaha adduunka aan runtii ugu faanna waxaa ka mid ah dadkeennu waa dad dhallinyaro ah bulshooyinku ma helaan dad dhallinyaro ah 70 and above waa dhallinyaraa la dhahaa dalkeenna maadaama ay dalkeennu ay dhallinyaro yihiin dee xoogga ku jira waad garanaysaan tiro ahaan populationka intay ka yihiin aad ay u badan yihiin waxaa kale dhallinyaradeennu markii aynu independencega qaadanaynay SYL dhallinyaray ahaayeen dalkan xorriyaddiisa dhallinyaraa keentay maantana dibu xorayntiisa hooyada iyo wiilkeeda dhallinyarada iyo gabadheeda dhallinyarada laga rabaa inay keenaan ayagaana keenaya waxaan rabnaa marka roolkiinu wuxuu noqonayaa rool taakulayna horta dagaalka horeeya xabadaad qaadanaysaa waa inaan xabadda qaadano oo safka hore gallo oo aan nimankaa iska celinaa kuwa ku dhimanaya ee jihaadaya ee dagaalamaya dhallinyaro waaye waanan ku faanaynaa wayna idin matalaan wayna matalaan waanan u hambalyaynaynaa ciidamada qalabka sida xoogga dalka soomaaliyeed waxaan rabnaa marka mid taakulaynaa ku jira naf iyo maal inaan ku taakulaynaa la rabaa waxaan rabnaa morally inaan ku taakulaynaa la rabaa waxaan rabnaa inaan ku kaalamayno propagandada iyo social media waxaa nasiib daraa inaad aragto dalkii oo dagaal ku jira oo cadow dagaal kula jira weliba jihaad ah kula jira inaad aragto qof Soomaali ah oo ciidankooda wax ka sheegaya oo dagaalka wax ka sheegaya oo ku tilmaamaya in beelo la hubeynayo in meesha waxa ka socdaay uusan waxaas baahayn waa nasiib darro waaye saa darteed social media wada adeegsataan ciidamadiina ku taageera kacdoonka shacabka ku taageera runtii shabaab seen ula diriraynaa
shabaab saddex meelood ay ka diriraan saddex group waaye group waa ciidan dagaalama waa inaan kula dirirnaa group waa qaybta ideologiska isticmaalsan u qaabilsan ee u fatwooda ee diinta uga dhiga ee beenta u akhriya waaye kuwaasna waa inaan diinta u saxnaa oo aan alxuja bilxuja kaga hortagnaa oo aan diinta caddayno waaye waa laynaga rabaa group kalena waa groupka ugu daran waa groupka dhaqaalaha bixiya kaan rabo meesha musiibadu ka jirta meeshaas waaye sidaa darteed qof kasta oo shabaab xoolo u wada ama u taga waa hadaf ka mid ah dawladda hadaf buu u yahay maxaa jira dawladdu waxay mas-uul ka tahay dhiigga shacabka soomaaliyeed inay ilaaliso dhiig mar hadday timaadana ama diin timaadana waxyaabihii ilaahay uu ina faray in la ilaaliyo oo ah kulliyaat alkhamsa la dhihi jiray caqliga diinta ay ugu horeyso nafta muslimka maalka cirdigiisa intaba shabaab cadow bay ku yihiin intaa ninkii cadowga ninka xoolo u sii wada dawladda mas-uuliyaddeeda yani diin ahaan ilaahay uu saaray waxaa ka mid a dadka inay ilaaliso intaa u ilaaliso kuwa xoolaha u geynayaay intaasay weerar ku yihiin ayaga iyo shabaabku waa isku mid isma dhaawaan waa inuu ogaado boqolaalka soomaaliyeed ee lagu laayay qaraxyada maalka lagu soo gaday waa kaagii dambiilaa tahay meeshaad qiyaamo gelin adiga og wixii hadda ka dambeeyana dulqaadkaas waa dhammaaday marka dadku waa inay walaalaha iyagoo sharaf leh waa inaysan xoolahooda cadaab ku gadanin dawladdana waajib bay ku tahay dadka inay u ilaaliso naftooda iyo maalkooda iyo diintooda iyo cirdigooda iyo caqligooda inay u ilaaliso cid alla ciddii ku soo duusha intaasna tabari meel kastoo ay tabari taallo shacabka iyo dawladda soomaaliyeed oo isku duubani way iska celinayaan taasna intaasaan ka dhihi lahaa ugu dambaystii xukuumadda dan qaran dhammaan hay-adaha dawladda waxay u darban yihiin oo ay u taagan yihiin oo ay u diyaar garoobeen oo ay u jahaysteen jihaadkaas in laga qayb qaato dadka ugu muhiimsan ee ay garbaha u ah ee lugaha u ah ee xoolaha u ah ee maskaxda u ah waa laba group oo bulshada ka mid ah hooyada ama gabadha soomaaliyeed iyo dhallinyarada soomaaliyeed waaye halkan dhallinyaradii baa fadhiba dhallinyaroy mustaqbalkiinu wuxuu ku jiraa haddaad rabto inuu mustaqbalkaagu madoobaado oo saan iska sii ahaado de waan iska fadhin haddii kale dalka aan xoraysanno markaan xoraysanno soomaaliya adduunyadoo dhan baa soo aadaysa barwaaqadii adduunka ka dhacaysa dalkeenuna wuu hormari laysmana weydiinayo waxbarasho iyo shaqo laysma weydiinayo ilaahay idankiisa horay ka imaanayaan arrintaas way imaanaysaa way ka go-an tahay xukuumadda waxaan ugu baaqayaa dowlad goboleedyada shacabka soomaaliyeed way dhaqaaqeen xukuumadda dan qaran way hor soconaysaa waxaan rabnaa ayagana dowlad goboleedyada dhammaantood meel kastoo joogaan inay saa u diyaar garoobaan shacabka ku nool dowlad goboleedyada soomaaliyeedna qaybahooda kala duwanna inay sidaa u diyaar garoobaan dadka soomaaliyeed oo midaysan waxaan leenahay way inagu daahday intaa ka badan waxaan leenahay maya no more shabaab mar dambe inay usoo dhex noolaadaan waadna mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu